halkan waxaa ka soconaya shir aad iyo aad xasaasi u ah. waxaa fadhiya madaxweynaha dalkan Afrikaanka ah iyo 12 ka mid ah golahiisa wasiirada. waxaa laga sheekeysanayaa sidii loo sameyn lahaa isbedel weyn oo dawladdan la xiriira, sidii kacaanka wadankan qabsada looga dhigi lahaa mid sida ay bulshada u jecel yihiin looga sii siyaadiyo. laakiin markan qolka waxaa ku jira 4 xubnood iyo waliba oo madaxweynuhu 4 ku yahay. waxaa laga shirayaa istiraatiijiyadda la xiriirta hoggaanka dawladnimada iyo xiriirka dadweynaha. laakiin xabad ayaa soo bilaabatay. wax iska caabina meeshani kama socdaan. madaxdani ma filanayn rasaas noocan oo kala ah inay sidaan oo kale ooda looga soo qaadi doono. laakiin madaxweynuhu waxa uu fahmay in maanta xukunkiisii la soo gabagabeeyay. waxa uu saaxiibadii ku yiri iska jooga, cidda loo socdana waa aniga. isagoo gacmaha taagaya ayuu ka soo baxay xafiiska oo oranaya anigii waa kana waana isdhiibay. laakiin kooxaha weerarka soo qaaday oo ka tirsanaa xubno ka mid ah militariga qarankan rasaasta kama aanay joojin, oo isaga ayay mid walbaahi qorigii uu hayay rasaastii ka baxaysay uu ku soo aadiyay. halkaas ayuu ku dhintay, ku dhacay, isla markaana uu ku dhig baxay. tani waa qisada Thomas Sankara, madaxweynihii wadanka Burkina Faso ee dhalinyarada ahaa ee isagoo 33 sano jira caalamka tusay qaaradda Afrika in ay shacabkeeda isku filnaan karaan, isbedel weyn ka sameeyay wadankiisa. laakiin adiga yaad leedahay waa uu ka dambeeyay dilkan. waxaa lagu eedeynayaa dilkan inuu ka dambeeyo saaxiibka ee Carajiifka isla soo ahaayeen, ninkii ay ka midoobeen talada iyo aragtida wadanka, ninkii ay muddo aaminsanaayeen shacabkiisa in ay wadankan sidaan inuu ku noolaado uusan istaahilin, ninkii ay wadamo fara badan isla goosheen, maalin badanna ay ciidda isla xariiqeen, ninkii sababta u ahaa in uu isaga kursigan qabto. laakiin markii dambe dadkii wadankan ay ka ilaalinayeen iyo waliba shisheeyihii ay u arkeen in uu yahay nin nugul oo la soo isticmaalay. isaga xagee ku dambeeyay? 4 sano oo talada Thomas Sankara joogana maxuu adduunka baray taariikh la yaab leh oo qaaradda Afrika la xiriirta iyo waliba isbedeladii ka dhacay wadanka Burkina Faso ayaan kula wadaagayaa maanta, iyo waliba dhammaadkii 80-aadkii ee qarnigii tagay wixii qaaradan ka dhacay. soo dhawaada, waxaan ahay Cabdicasiis Barrow, halkanna waa channelka Barrow Show. u diyaar garooba 10 Oktoobar sanadku waa 1987. qol ku yaala aqalka madaxtooyada ee caasimadda Wagadugu ee wadanka Burkina Faso waxa ka soconaya dhaqdhaqaaq xoog leh. dawladda talada haysa ee on 4 sano dalkan maamulaysa iyo shacabkeedu aad ayay isu jeclaadeen. wadanka waxa ka dhacay isbedel ballaaran oo aan la filanayn inuu sidaan oo kale uga dhacayo. laakiin adduunka oo dhan ayuu galgalay wiilka dhalinyarada ah ee wadankan hogaaminaya. waa Captain Thomas Sankara, nin dhalinyaro ah oo militariga wadankaasi soo galay, isagoo waalidka ay u diyaarinayeen inuu noqdo baadiri ka shaqeeya mid ka mid ah kaniisadaha Katoliga ee wadanka Burkina Faso. laakiin isaga markii uu barbaaray doortay in uu ku biiro ciidamada qarankiisa si uu u noqdo heliyay shacabkiisa difaaca, isla markaana dhiiggiisa u hora badbaadinta qarankiisan qaaradda Afrika ku yaala. Thomas Sankara markii uu talada amaan ilaahda militariga ku soo biiray waxa uu galay tababar aad iyo aad xasaasi u ah. waxa uu noqday mid haldoor ah oo ka soo dhex muuqday dhalinyaradii ay isla tababaranayeen. isaga iyo waliba Blaise Compaoré oo ahaa wiil kale oo dhalinyaro ah waxay noqdeen 2 nin oo xabadda kibista ah ee la siiyo kala goosta. waxana ay noqdeen niman wadankan iyo waliba sidii loo hormari lahaa ka fikira. muddo dheer ayay ka mid ahaayeen askarta, iyagoo tababaro kala duwan u aaday dhowr wadan oo ka tirsan qaaradda Afrika, laga soo bilaabo dalka la yiraahdo Madagascar ee jasiiradda ah, wadanka Cameroon iyo dhowr wadan oo kale.
dhammaan wadamadan markii ay tagaan waxa ka dhacaya kacdoon dadweyne talada wadamadaasina waxa qabanaya kacaan bulshada wadankaasi aad u soo jeetay erayada ay iibinayeen wadamadii ay joogeen waxay ahaayeen baahiyaha ka jiray wadanka Burkina Faso oo ay iyagu ka tirsanaayeen waxyaabaha la soo bandhigay waxay ahayd la dagaalanka saboolnimada faqriga jahliga iyo waliba in xaalufka deegaanka laga hortago iyo waliba in caruurta laga talaalo cudurrada dilaaga ah markii ay muddo joogeen 80maadkii ilaa 70maadkii wadankoodana ay ka mid ahaayeen askarta ugu firfircoon waxa wadankii uu noqday mid mashaakilaadka oo Burkina Faso ay aad ugu sii ballaarteen shacabkuna ay ka maageen nolosha aadka u sii xumaanaysa wadanka Burkina Faso xilligaas 10% ayaa wax qori kartay waxna akhrin kartay 80% dadku waxay ku noolaayeen xaddiga ka hooseeya faqriga sida ay tilmaamayeen cilmi baarisyo kala duwan ee la sameeyay deymaha ayaa wadanku uu la kaca kufayay maalinba maalinta ka dambaysa waxa kordhayay is-inqilaabida askarta kala duwan ee wadankaasi Burkina Faso gacanta ku hayay laakiin qof baabaxaya mooyaane ma jirin isbedel maamul ama isbedel himilo oo meesha timaaday shacabku waxa ay gaareen inay qoys aad u ballaaran galaan meelo kala duwan ayay waxay uga baxayeen wadankooda iyagoo shaqaale hoose ka ahaa wadamada ku hareeraysan dalka Burkina Faso tani waxa ay dhibaysay laba dhalinyaro ah waa Blaise Compaoré iyo sidoo kale Thomas Sankara waxa ay muddo sidaas ahaayeenba maalin maalmaha kamid ah ayay isla go'aamiyeen isaga iyo rag badan oo saraakiil ah oo ciidamada ka tirsanaa wadankan in la badbaadin karo laakiin loo baahan yahay raggii tashan lahaa oo shacabka wadankan ka dhigi lahaa inay ka hoos baxaan gudnimadan iyo waliba dhibaatooyinkan daashaday in aysan eegi karin waalidiintood walaalahood iyo waliba mustaqbalkii wadankan oo ceel ku sii dhacaya waxa aad u yaraanaya caruurta aadaya iskuulada madaxda dawladdu waxa ay ku safrayaan gawaari qaali ah qoysaskoodana waxay u dirayaan wadamada dhaqaalaha leh dalxiiska waxay u aadayaan meelo kala duwan laakiin shacabku waa dhimanayaan canshuurtana waa laga qaadayaa wax adeeg dadweyne ah oo loo sameynayana ma jirto hogaamiye ayaa mid kale afgambinaya waxa ay taladu sidaasi ahaato oo nolosha wadanku uu sii adkaado sanadka markii uu ahaa 1983 Thomas Sankara oo dhalinyaro ah ayaa waxa uu la wareegay taladii wadankaasi waxana arintaasi kala shaqeeyay qaar kamid ah dhalinyaradii isaga ay saaxiibada la ahaa Blaise Compaoré oo kamid ahaa magacan hoos ku qoro waa ninka sheekada oo dhan bedeli doona isla markaana himiladii taagneed aasi doona markii talada wadanka la yimi madaxweyne Sankara waxa uu sameeyay wax la yaab leh waxa uu iska diiday dhammaan gargaarkii hay'adaha samafalka ee qaramada midoobe iyo kuwii hay'ad dawladaha waaweyn ka socday hadii ay noqon lahayd hay'adda gargaarka Ingiriiska UKAID la yiraahdo hay'adda gargaarka Mareykanka USAID la yiraahdo iyo waliba in uu lacago deyma ah wadankiisa uga qaado World Bank iyo IMF labadaba waxana uu sheegay wadankiisa inuu qani yahay isku filan yahay isla markaana dhaqaalihiisa iyo wixii uu soo saaran lahaa isaga inuu samaysan doono dunida waxa ay la yaabtay wiil yar oo kabtan military ah in uu tilaabooyinkan oo kala qaadi karo laakiin waxa la yiri bal aynu sheeda karo ka eegno waxa uu samayn karo iyo bal isagay dadka goorta isnaci doonaan sida taariikhaha qoran ay tilmaamayaan Thomas Sankara waxa uu la dagaalamay jahliga isagoo adeegsanaya qarashka iyo qiimaha wadankiisa waxa uu furay iskuulaad aad u fara badan qof kasta oo wadanka Burkina Faso ka tirsanna waxa uu ku amray in iskuulaadka la aado si wax loo barto qiyaastii 60% dadkii waxay noqdeen kuwa wax qori kara waxna akhrin karo
ilaa iyo 4 milyan oo caruur ah ayaa lagu soo waramayaa sida taariikhdu ay qorayso in uu ka talaalay cudurrada dilaaga ah sida jadeecada, gowracatada iyo waliba cudurrada caruurta laga talaalo oo ay u dhintaan markay aad ku daayar yihiin. in ka badan 10 milyan oo geed ayuu Sankara ama dhir ayuu wadankaasi ku beeray si loola dagaalamo xaalufka iyo waliba dhulka saxaraha noqonaya ee qarankiisa. Thomas Sankara waxa uu ka istaagay fagaaro ku yaala magaalada Ouagadougou ee caasimadda wadankaasi Burkina Faso. shicibkiisa ayuu la hadlay waxana uu gacanta ka saaray run muddo dheer ay aaminsanaayeen laakiin isaga xaqiiqadiisa uu soo baaray dowladnimadiisana ay soo xaqiijisay. waxa uu ku yiri wadankan Abba Falta la yiraahdo ma aha wadan faqiir ah sida la idin sheegay. idinkuna ma ahidin shacibka jeysan laakiin waxaad tihiin shicib kuwii ay dirsadeen inay u adeegaan ay fahmi waayeen xaqiiqada saxda ah jihada dowladnimadooda la rabay inay aadiso. waxa uu sheegay wadankan in uu leeyahay kheyraad aad u fara badan oo macaadin ah isla markaana beerihiisa ay yihiin mid shicibkan wadankan Burkina Faso ku nool ama reer Burkina Faso ka dhigi karaya in ay noqdaan kuwa taajiriin ah oo aan weligood u baahan inay lacag deyn qaataan iyo waliba in caalamka ay ku hor dhibaatoodaan ama loo arko dad gaajaysan oo sabool ah. waxa yiri maanta waxaynu anba qaadaynaa haddii aan nahay shacabkan Abba Falta geed weyn oo bilaaban doona. waxaan bedelay ayuu yiri magacii wadankani Abba Falta ahaa ee gumeystay Faransiiska uu baxshay. wadankan waxa la yiraahdaa wixii hadda ka dambeeya Burkina Faso. shacabka wadankanna waa reer Burkina Faso taasoo macnaheedu yahay shacabkii ku noolaa dhulkii taaga ahaa ee haddana ahaa dadkii daacadda ahaa. sidaas ayaa horta magacii wadankaasi lagu bedelay. maalintaasi waxaa la yiri guul iyo warsan wax kastana waxay noqdeen kuwa hore u socda. waxa uu eebiyay qalabkii iyo waliba gaadiidkii qaaliga ahaa ee madaxda dawladdu ay ku socdeen. markii ugu horeysay labadii wasiirba waxa uu ka dhaxaysiiyay hal gaari laakiin cabasho timi iyo shaqadii oo sii yaraanaysa iyo hawsha dawladda oo aad u fara badatay kadib wasiir kasta waxa loo ogolaaday gaari aan qaali ahayn oo aan shidaal badan cunayn in uu ku socdo. wasiirka gaarigu isagama tamashlayn karo marka uu shaqo leeyahay oo kaliya ayuu ku aadayaa shaqada. wixii shaqada markii ka dambeeyana waxa uu soo dhigayaa xafiiska dawladda waa uu lugaynayaa kadibna waxa uu aadayaa isagoo hal waardiye ah wata gurigiisa. shicibka waxa loo arkay in ay noqdeen dabaqado siman oo aan kala sareyn. waxa uu la dagaalamay wixii loogu yaqaanay gumaysiga iyo waliba afkaariha ay soo bandhigayeen gaar ahaan dawladihii reer galbeedka. maalintan waxa la ogaaday shacabka reer Burkina Faso inay isku filnaadeen. beerihii ayaa waxa ka soo baxay dalag aad u fara badan. dadkii u shaqo tagi jiray wadanka banaankiisana waxay markaan iimaansanayaan qarankooda oo Burkina Faso ah. qaaradda Afrika ayaa waxa uu bilaabay inuu uga hadlo maxaafisha iyo fagaarayaasha caalamiga ah. waxa uu yiri Afrika waa inay iyada iskaashato isla markaana ay ka gudubto waxyaabaha ay ka mid yihiin musuqmaasuqa, ku takrifalka hantida dawladda, dhibaataynta shacabka iyo waliba isjooxaarinta madaxda. haddii intaasi la gaaro waxa uu yiri waxaynu adeegsan doonaa caqli iyo cudud iyo maal iyo waliba wax kasto aan anaga haysano ayaan dunida tagtay uga daba tagi karnaa. laakiin haddii aynu isku aragno inteena madaxda ah in aan wadanka uga dhigno madax ka nool dadka kalena ay noqdaan kuwa kaliya la adoonsado oo la rarto waxay noqonaynaa kuwa aan wax qiimo ah ku fadhin. ninkan waxyaabaha lagu xasuusto oo taariikhda la xitaa waxa kamid ah mushaarkii wadanka uu ka qaadanaya ayuu hoos u dhigay ilaa sida diiwaanada ku qoran ay tilmaamayaan uu gaarsiiyay $450 oo kaliya. waxaana sidoo kale uu amray baa layiri madaxda dawladda in aanay raacin diyaaradaha meesha business class-ka ah oo dadka dhaqaalaha haysta ay saaran yihiin. Sankara oo ka hadlay fagaaro kale oo ku yaala Ouagadougou waxa uu yiri sidee lacaga iyo tikidh qaaliya u bixin karnaa
inagoo shacabkeenna ay u baahan yihiin inaan gacan siino. sideen diyaarado uga raaci karnaa business classka iyadoo dadka qaybta dambe fadhiya ama qaybta hore fadhiya marka ay diyaaradda kacdo ay iska wada mid yihiin? waxa kaliya ee dadka lagu kala gartaa waxay tahay sida uu garaadkooda iyo caqligooda u shaqeeyo. tani waxay soo jeedaa laabta dadka reer Burkina Faso oo dhan. aad ayay ninkan dadka oo dhan u jeclaadeen. waxa uu ahaa nin marka uu shaqada ka tagay isticmaalo 4 baaskiil oo lahaa mid kamida gaariga dawladda ugu shaqeeyana uga soo taga aqalka madaxtooyada. maalmaha uu fursada leeyahay waxa uu isticmaali jiray inuu aad u garaaco kataarkiisa. waxa uu ahaa nin jecel heesaha aadna dadka ugu goobaabin jiray. waliba waxyaabaha dawladdiisa dhaqaajiyay 4 sano waxa lagu tilmaamay in ay suugaanta qayb ka ahayd. wadamada waxa uu saaxiib u lahaa midka shacabka wadankiisa qiimaha u yeelaya. madax fara badan oo Afrikaan ah ayuu waxa uu soo jeediyay bal inay noqdaan kuwa iyaga isku tashta oo maankooda wax ka iqtiraaca oo Afrikaanka kala gacan siiya oo iyaga isgarabsada halka ay noqon lahaayeen kuwa deymaha loo miiso dulsaarkana lagu sii badiyo sida maanta wadamo fara badan oo Afrikaan ka jirta. cunug kasta oo Burkina Faso lagu dhalay markaas waxa loo arkayay in uu la korayo himiladii Thomas Sankara. wadanka Burkina Faso waxa loo arkayay Wagadugu oo u ekaanaysa ama kaba daba dhawaanaysa magaalada Paris. magaalooyinkii kalena ay u ekaanayaan magaalooyinkii kala duwanaa ee wadankaasi Faransiiska uu lahaa. xitaa dawladda Faransa xilligaasi joogtay waa la yaabtay. dawladihii dariska ee ku hareeraysnaa ay iska heli jireen shaqaalaha jilicsan ee shacabka Burkina Faso markan waxay waayeen cid u soo shaqo tagaysa. qof kasta oo Burkina Faso ka yimaadana waxa uu wada qiimo wadankiisa uu ka keenayo badeecad oo lacag ku raadinayo oo iyagii ayaaba markaan noqday loo shaqeeyaal. 4 sano kadib ayaa waxay ka gooreen shaqadii hoose waxaanay u gooreen qofka Burkina Faso marka la arkaba in la arkayo lacag qiimo Afrikaannimo iyo waliba horumar aad u ballaaran. wadamadii dariska ayaa gilgashay. Faransiiska waxa uu arkayay waxa Burkina Faso iyo Wagadugu ka soo baxay in ay halis yihiin. markan qolal kala duwan oo ku yaala galbeedka ayaa waxa ay bilaabeen in ay daraaseeyaan ninkan iyo sida ugu sahlan ee xukunka lagu dhaafin karo. haddii wadankan Burkina Faso uu kacana in ay qaaradda Afrika oo dhan isbedeli karto. Yurubna ay noqonayso meel duntay, Mareykankana qudhiisa ay arrintan saameyn ku yeelanayso. dhammaan siyaasadda galbeedka iyo wadankan ka gooray dhinaca barigana waa u jihaystay. laakiin maxaa dhacay? markii la rogrogay talada waxa la ogaaday Compaore ninka la yiraahdo oo Thomas Sankara ay saaxiibada ahaayeen ayaa loo arkay inuu yahay ninkan xukunka dhaafi kara. waxa laga dareemay isbedel. waxa uu bilaabay taliyaashii madaxda iyo ciidamada inuu la shirshiro. waxa uu si gaar ah ula xirtay dawladihii reer galbeedka. waxa loo diyaarinayay in uu Thomas Sankara isaga bedelo. maalintaasi Sankara waxa uu doonayay shicibka iyo dawladnimada in aad la isugu soo dhaweeyo. maalin maalmaha kamida ayaa waxa u yimi wasiirkii arrimaha amniga gudaha u qaabilsanaa xukuumadii Sankara. waxana isaga oo ku jira qasriga Wagadugu u sheegay mudane madaxweyne saaxiibka Blaise Compaore aniga waan ka shakisanahay. waxa uu sameeynaya waa afgambi adiga ka dhana. xukuumadana waxa uu doonayaa in uu majaxaabiyo. sidaas darteed madaxweyne inta aanay talada dalka faraha ka bixin noloshaadana aanay halis gelin waxaan ka codsanayaa in aan tallaabo degdeg ah qaadno. laakiin Thomas Sankara oo xasuusanaya saaxiibkii caqiidadii labadooda ka dhex gooxaysa ee dawladnimada iyo sida isbedel loo keeni karay ee wadankan heerkan lagu soo gaarsiiyay waxa uu yiri taasi ma dhacayso oo ninkan isaga ayaaba dawladan madax ka ah oo aniga ma rabin inaan madaxweyne noqdo. hase ahaatee saaxiibkay aniga waan isballansanay aniga ballantii kama baxayo. laakiin maxaa dhacay? marka ay taariikhda tahay 15 bishii Oktoobar sanadkana uu yahay sanadkii 1987
maalintaasi madaxweyne Thomas Sankara waxa uu soo doontay shaqadiisii caadiga ahayd. waxa uu la shiray golahiisa wasiirada. 4 xubnood oo gooniyana waa uu ka saartay. kadibna waxay ka sheekaysanayeen sida loo sameyn karo istiraatiijiyadda communicationka ama xiriirka dadweynaha iyo dawladda hanaankii loo dhisi lahaa. dawladuna ay u noqon lahayd mid soo arkaysa adeega bulshadan u shaqeynaya. intii rog sheekadan iyo curinta afkaaraha lagu jiray, rasaas ayaa soo bilaabatay. qoryaha darandooriga u dhaca ayaa meel walba oo ka mid ah xafiiskooda soo gujinaya rasaasta. laakiin ma jirin rasaas iska caabina iyo wax la filan karay. madaxweyne Thomas Sankara waxa uu gartay maalintaasi inaysan ahayn maalin caadi ah. 12 wasiir oo xafiiska 13 wasiir oo xafiiska kula jirtay ayaa waxa uu ka codsaday in ay joogaan oo ay xafiiska ku jiraan, isaga oo gacmaha taagaya, koofidiisii casayd ee madaxa u suran tahay, dharkiisii tuutahana wata, ayuu xafiiskii banaanka uga soo baxay. kadibna gacmaha ayuu kor u taagay oo waxa uu yiri waan isdhiibay. laakiin kooxii weerarka soo qaaday intaa kuma simin. rasaas ayay la dhaceen ilaa neeftii ugu dambeysay uu afuufo oo uu dhulka ku dhaco. maalintaasna Thomas Sankara iyo waliba ay ismacsalaameeyaan adduunka. kooxii intaa kuma simin oo 12 ka mid ah golihii wasiirada ay dileen. waxa kaliya oo ka badbaada waxay tahay Traore Alona oo markaasi ka mid ahaa dadkii meesha joogay, laakiin iska dhigay in uu dhintay oo kale. halkaasna looga tagay iyagoo u arkaya inuu yahay meyd. warkii dhimashada Sankara ayaa ku faafay adduunka, Burkina Faso, qaaradda Afrika iyo adduunka. wadan kasta oo ka mid ah qaaradda Afrika ilmada ayaa shacabka qubatay. waxay u arkayeen isbedel ka soo bidhaamaya wadankaasi oo qaaradda Afrika oo dhan gaari doona in la soo gabagabeeyay. sheeko ay ka shaqeeyeen sirdoon fara badan. laakiin dawladda markii ay talada soo faragelisay oo shacabkii ay xanaaqeen, Blaise Compaoré oo ahaa saaxiibkii madaxweynaha iyo waliba xubno kale oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ayaa la qabtay. qaarkoodna dil lagu xukumay, qaarkoodna xabsi daa'im lagu xukumay. Compaoré markaasi talada wadanka gudihiisa waa uu ka maqnaa, laakiin bilowgii 9-shamaadkii ayuu ku soo laabtay isagoo taladii wadankaasi la wareegay siday u qorsheynayeen reer galbeedkan ay u dhacday. 27 sano ayuu wadankaasi Compaoré maamulayay. mar wax badan laga weydiiyay dalka Thomas Sankara iyo waxa uu ku lahaa, waa uu diiday inuu wax talaaba ku lahaa. waxa uu yiri sideen aniga u dili karaa saaxiibkii aan isla soo dhul jeefanay oo aan muddo dheer soo wada shaqeynaynay. ninkan Compaoré ma raacin taladii iyo ujeedadii Thomas Sankara. wadankii siyaasadiisii ayuu dhinaca kale u rogay oo jihadii reer galbeedka ayuu u leexiyay. faqrigii ayaa dib loogu laabtay, deymihii ayaa la qaatay, wax kasta oo nolosha ahna waa burbureen. shacabkii 4 sano horumar gaarana waxa ay bilaabeen inay xuduudaha jabsadaan iyagoo ku laabtay noloshii hoose. oo 60% shacabka reer Burkina Faso waxay noqdeen kuwa nugul oo aad xaddiga faqriga uga hooseeyay. Thomas Sankara waa dhintay, laakiin xusuusaha noloshooda ayuu ku dhex nool yahay. sanadkii 2014 iyadoo 27 sano oo talada Compaoré joogay, shacabkuna ay aad u karheen, ayaa waxa uu isku dayay dastuurka mar kale inuu wax ka bedelo. laakiin dibadbaxyo ayaa isqabsaday wadanka oo dhan. qof kasta oo nool waxa uu akhriyay taariikhdii Sankara, kuwii dib ka dhashay ayaa loogu sheekeeyay. ninkan waxa loo arkay inuu yahay ninka cadowga ku ah wadankan Burkina Faso iyo horumarkiisa. dibadbaxyo ayaa isqabsaday, xaruntii baarlamaanka ayaa la gubay, hantidii iyo waliba dhaqaalihii Compaoré iyo qoyskiisa ay samaysteen iyo shirkadoodii xitaa dab ayaa la qabadsiiyay. wadanka ayuu isaga tagay, taladiina waa iska casilay. sida diiwaanadu ay sheegaan sanadkii 2022 maxkamad ku taala Burkina Faso ayaa Compaoré iyo saraakiil ciidan ku heshay ku lug lahaanshiyaha afgambi iyo dalkii Thomas Sankara. Compaoré waxaa lagu xukumay xabsi daa'im inkastoo dalka uu ka maqan yahay. hase ahaatee wax kasta oo wadankaasi hadda waa isbedeleen. mar kale ayay rajo soo bidhaantay.
hotelada wadanka waxaa la wareegay kabtan Ibrahim Traore oo hadda talada wadankaasi haya. dhowr jeer ayuu ka badbaaday hanaan la xiriira sidii lagu dilay Thomas Sankara oo kale, laakiin isagu aad ayuu u feejigan yahay. wax kastana waxa uu ka hormariyaa riyadii Sankara. laakiin su'aasha isweydiinta la waxay tahay Ibrahim Traore ma noqon doonaa Thomas Sankara komboran amba laga ilaalin kala mar kale qof u dhigma inuu wadankaasi ka soo baxa? rajadii Afrikana ma mar kale ayay dib u curatay? waqtiga ayaa ka jawaabi doona. soo dhawaada.